Ethiopia maleeshiyad maxalli ah ayaa ka adkaaday militariga awoodda badnaa ee dalka Ethiopia tan iyo markii dagaalka Tigreega uu ka bilowday dalka Ethiopia waxa si xoogaysanaya eedeymaha dawladda Ethiopia loogu jeedinayo inay garab militari ka helayso dalal kale hadda waxa xigtay in qaar ka mid ah ismaamul goboleedyada dalka Ethiopia oo uu ku jiro ismaamulka Soomaalida ay ciidamo u diraan gobolka Tigreega ee waqooyiga Ethiopia warbaahinta caalamka ayaa muddooyinkan hadal haysay sida ay maleeshiyad maxalli ah ugu babacdhigeen militariga awoodda badnaa ee dalka Ethiopia wargeyska New York Times ayaa maqaal uu qoray ku sharaxay in wariyaal ka tirsan shaqaalihiisa ay si dhow la socdeen qaabkii ay xoogga Tigreega ula dagaalameen militariga Ethiopia muddo 8 bilood ah ayay xoogga TPLF dagaal qaraar kula jireen militariga xukuumadda Ethiopia kadibna waxa soo muuqatay in ay ka guuleysteen sida uu maqaalka ku sheegay wargeyska New York Times intii uu dagaal ka socday lama heli karin adeegyada isgaarsiinta dhowr bilood kadibna waxa mar qura laga warhelay in maleeshiyadka TPLF ay dib u qabsadeen qaybo ka mid ah gobolka oo ay ku jirta caasimadda maamulkaasi ee Maqale bishii November ee sanadkii la soo dhaafay ayay ciidamada federaalka dawladda Ethiopia xoog ku qabsadeen gobolka Tigreega iyagoo dilay qaar ka mid ah madaxdii xisbiga TPLF hase yeeshee 7 bilood ayay dhinacyada dagaal xeelado kala duwan loo adeegsaday ku jireen ilaa markii dambe dib loo soo riixay ciidamada federaalka xilligaasi wixii ka dambeeyay waxa ay soo tareeyay gurmadka ay helayaan ciidamada dawladda ee uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Abiy Ahmed wadamo ay ka mid yihiin Eritrea iyo Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay ciidan geeyeen Tigreega si ay uga barbar dagaalamaan militariga Ethiopia ee wajahaya xoogga Tigreega ama TPLF inkastoo labada dawladood ay beeniyeen arrimahaasi Eritrea oo xuduud la wadaagta Tigreega ayaa marar badan gaashaanka u daruurtay inay ciidamo ka joogaan Ethiopia inkastoo markii dambe ay sheegtay in halkaasi laga saaray sidoo kale qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay inay soo gaareen warar sheegaya in ciidamo Soomaali ah lagu arkay magaalada qadiimiga ah ee Aksum ee gobolka Tigreega iyaga oo ka barbar dagaalamaya ciidamada militariga Ethiopia iyo kuwa Eritrea laakiin dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bishii Janaayo ee sanadkan beenisay in ciidamo Soomaali ah oo tababar u jooga Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay Tigreega wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cusmaan Abukar Dubbe oo xilligaasi BBC-da la hadlay ayaa sheegay inaysan gabi ahaanba jirin ciidamo ka tirsan kuwa xoogga Soomaaliya oo ka dagaalamay gobolka Tigreega ma jiraan ciidan Soomaaliyeed oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka dagaalamay waqooyiga Ethiopia iyo gobolka Tigreega sabab ay u dhacdana ma jirto cid naga cusatayna ma jirto ayuu yiri wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya waxa qayla dhaan badan laga muujiyay xasarada bani'aadanimo ee ka dhalatay colaadda gobolka Tigreega Ethiopia ayaa lagu yaqaanay inay ahayd mid ka mid ah dalalka ugu awoodda badan qaaradda Afrika ciidankeeduna ay ahaayeen kuwa cudud weyn leh qiimayntii awoodda dalalka caalamka ee uu sanadkan sameeyay wargeyska Forbes oo ka faalooda arrimaha militariga ayay Ethiopia kaalinta 7aad uga jirtay qaaradda Afrika halka guud ahaan caalamka oo ah 140 ay uga jirtay kaalinta 66aad Ethiopia waxa ay ka mid tahay wadamada ugu awoodda badan qaaradda Afrika marka laga soo tago wadamada kaalmaha ka horeeya ku jira ee Afrika oo kala ah 1 Masar 2 Algeria 3 South Africa 4 Nigeria 5 Morocco iyo waliba 6 Angola sida ku xusan warbixinta uu diyaariyay wargeyska Global Firepower tirada shacabka Ethiopia qiyaas ahaan waa 108 milyan 386,391 ruux tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxa lagu qiyaasay 41 milyan 143,474 ruux oo u dhigma 38.0% oo ka mid ah shacabka guud ee Ethiopia 25 milyan 508,954 oo qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka sanad kasta tirada dadka ay da'dooda soo gaadho heer ay ciidanka ku biiri karaan waa 1,989,698 qof tirada ciidanka militariga Ethiopia ee hadda shaqeeya
waa qiyaastii 162,000 oo askari sida ku xusan ama lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower. ma jirto ciidan kayd u ah militariga Ethiopia. awoodda ciidanka cirka Ethiopia waa 86. Ethiopia waxa ay leedahay 24 diyaaradaha dagaalka ah, 9 saanada kala gudbiya, 20 loogu talagalay tababarka, 33 diyaaradaha qumaatiga u kaca ah, 8 diyaaradaha qumaatiga u kaca ee weerarada fuliya ah. Ethiopia ma laha diyaarado loogu talagalay hawlgallada khaaska ah. awoodda ciidamada dhulka ee Ethiopia 400 oo taangi, 114 gawaarida gaashaamanaha, 67 madaafiicda iskood isku haga ah, 650 madaafiicda la jiida ah, 183 qalabka lagu rido gantaalada ah. awoodda ciidamada badda ee Ethiopia ma laha awood dhinaca ciidanka badda ah sida uu xogtiisa ku soo bandhigay wargeyska sanad kasta qiimeeya awoodda militari ee wadamada caalamka. taasi waxa ay ka dhigan tahay in Ethiopia aysan lahayn ciidan kuwa badda ah iyo maraakiib toona. dhaqaalaha ku baxa dhinaca militariga Ethiopia, miisaaniyadda loo qoondeeyo hawlaha gaashaandhigga ama difaaca ee dalka Ethiopia waa 350 bilyan oo dollar. deynta dibadda ee Ethiopia lagu leeyahay waa 26 bilyan iyo 50 milyan.